هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدد هدفك في الحياة. حدد هدفك في الحياة. الموضوع جعلها إنين وحسكن إلى هنا دي لها إدمو. حدد قيح ميلة. حدد ديرة صار ده أفكا ساينسكا مايكروسكوب كوردك. هدفك yoolkaaga noloshan aad nooshahay. marka anaa isla hadli bilow kadibna waan idin naseexayn insha Allah taala. diinu nasiixa soma isku naseexayni inaan wax kala qaadano, wax kale oo halka isugu nimid ma jirto. idin amri maayo askar batihidin كام ميليتريا ما joogno samee ama ha samaynin idin oran kari maayo. waxa ugu muhiimsan ee soo karnaa waxa weey arintan aynu isleenahay ka hadal arin wanaagsan. dad suubano inaga horeeyo wanaagsan baa isku sheegay. dad sidiinoo kale oo hagaagsan oo dhalinyaro iyo shabaab iyo shaabaad baa loo sheegay. way qaateen kadibna way ku amal faleen. markay ku amal faleenna way ku liibaaneen way ku najaxeen. marka dhakhaatiirteennii hore qolooyinkeenii farmakolojistiga ahaa ee dawooyinka isku dardari jiray wadaadadeennii hore muslimiinta ahaa ayaa marka ay dawo helaan, dawo cusub marka ay soo saaraan ee ay tijaabiyaanba inay suuqa gasho si ay u ogolaadaan ayay dawada waxay ku shaabadeen jireen jurribat wa sahhat. dawo heblaayo waa la tijaabiyey oo waa la qaatay bani aadam ahaan, waanay najaxday oo cudurkii loo dhigay way dawaysay. marka dawo lama iibsan jirin berigii hore wadaadadeenu ay hawsha ay dhigi jireen dhakhaatiirteenu ilaa inta laga helo. naseexadan aan isleeyahay hadii ilaahay ma hayl isku sheegnana waa naseexo horteen la sheegay, hortiina la qaatay, laguna najaxay oo lagu liibaanay. kalaam jamiil soo maaha. intaas muqaddimaha iga ahaato. حدد هدفك في الحياة. انت nimanka fadhinee inoo sameeyay qalabka iskaarsiinta ayaa ishaydu halkaas ay ku dhacday. iskuulka i'lam anna likulli shay'in ghaaya wa anna ghaayatu al-mar'i tamamu diinihi wa kamalu khuluqihi. markaasaan muhaadaradi ba sawta halka ku taalo inta u yar buu sheegtaayo deedna waa aqimi salaama tiraahdaa masaka tagtaanba. i'lam ogow anna likulli shay'in ghaaya wax walba yool buu leeyahay meel uu ku dhamaado oo hiigsado. wa anna ghaayata al-mar'i qofku wal mar'ati gabadhii way soo hoosgeli min baab tagliib insha Allah meesha ay ku dhamaato ama aad hiigsani tamaamu diinihi wa diintiisa u dhamaystiranta wa kamaalu khuluqihi akhlaaqdiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo qurux badnaada. intaas qofku maxay u ah gaayada ay tahayba inuu gaadhaba. marka inta halkaas burada ku qoranaya in yaro meelaha aan ku soo yar qorqoray baynu isku gengeyn hadii ilaahaydna. haddaan imika toos ahadkiin idin weydiiyo ama mid idin kamid oo ku iraado noloshaada maxaa ku hadafa, maxaad doonaysaa adigoo madaxana xoqan hoostana aan eegin waa toos u soo tuurtaa. laana waa arrin intaad ka fikirtay meel aad dhigtay kadibna iyada aad u shaqaysid iyada aad u nooshahay marka fikir farabadan ka qaadato maaha
hadday laakiin ka qaadato fikir badan tolo maxaa u noolahay oo kala dooratid koow iyo laba iyo saddex oo kala hormarisid iyo dib aad u dhigtid macnaheedu waxa weeyaan wali maad go'aansanin meesha aad rabtid iyo waxa aad u socotid qofka النول إنه هدف جاره أهدافنا ما كشكين دونا قفك النول هدف معينة إنه جاره وقفك كلية النول سعيدة نول هبئة نول قرحسن الدون كن كل يكون نولان كريه تصالح ما مسوق هذا مكان اللي يرد لحد يروح على هذا إمي كوك على جربتي مكان سادة عصر صوت وكتير الجوري أي كسب بحذي أو أنت salaadii wali ma tuguri ay baad ka soo baxday waxa maskaxda kaaga waxaad goosatay inaad tagtid oo masjid hebel salaadii casr ku tukatid waa hadaf inaad soo tukato salaadii casr waa maxay waa hadaf guri ay baad ka soo baxday inaad soo tukatid salaadii casr waad ogtahay salaadii casr goorta la eedaamo goorta la iqaamo saacad baa xiran tahay waad ku xisaabtami baska aad kori meesha aad kaga degi waad ogtahay haddii markaad soo baxdid xoogaa aad soo socotid boqofi ku dhaxda ku qabto oo sheeko ku bilaabo in yar kadib waxaad bilaabina saacada eegtid laana meel baad waqti baa iqaamadii baa markaas saacada eegtid baa wasa aakhirka haduu ku sii deyn waayo wanayo saacadii baa iga tagaysay iga raali oo wal carabi soo hadaf maad lahayn haddaad iska soo baxdid una ka qadeysay saaxatid adigoo hadaf meel aad u socoto aan garanaynin guriga unaad ka daashay oo isleeduun meelaha uu soo marmar gabalku waa ku dhaco un hadhow marka daashida soo noqotide qof allaala qofkii kula hadla waxaad jeclaan inaanu ka tagin ku dul taagnaado maanta oo idin inaad meelaha marba midig iyo bidix aad u jaleecsatid baad ka jeclaani saacad eegi meeshada wax ku dhibayo kar ku hayaa jiri maayo waqtigaagu inuu meelaha uu iskaga dhamaado marba bal xataa talaabadaadu laga yaabaa talaabo qurux badan oo degdeg badan inaanay noqone inay noqoto mid iska cagajiid ah labada socod ninka salaadu ama gabadha ama inanka salaadu ay dhaafayso socodku soconi iyo degdegta iyo jiddiga iyo hammiga ku jira يعني قف كامل الله ميل وسعد عن جرنينين وإحنا أنا ميل وقوم ديسنا عيتهاي وقت يقول هذا وسك سوريدو حل الدم بقولي كالي هذا صاير دالو قولي عاجز نمر اسكتك لا وضع قفي صعد كودا سيدا وأكل الدنيا هاي أيو أكل الدنيا هاي نرش الله بقف أو كن كركي كن نول مدينة هدف ولا يه ونول يه إنه حقيقيه مدينة أنو هدف أنو نولين أي تهاي قبل أدوما يعاد صباح ذا أي تهاي نرشيسو شركة هن جناح سجايا دون كب جوجا شيلين كان ربينا كبعيان حتى إسكبدا مبدأ يو هدف يو قيمة يو الرئيس رأيه شركة هاسي مركا عيرابان إني لعد بيسنس بيور بيسنس إني سميان warqada ay ku aasaastaan shirkadda warqada ugu horeysa waxay ku qortaan danta shirkaddan loo aasaasay oo farwaaweyn lagu qoraa hantiilayaasha iyo kuwa lacag ku lihi iyo kuwa ka shaqeeyo idinba waa la xasuusiyaa xilli walba shirkaddan waxa loo aasaasay inay xaqiijiso danta heblaayo danteeduna waa waadix noqotaa sida awgeed tusaale haddaan soo qaato shirkadda Sony meelaha inaga ma agtaalo ma lehe sharp baa inagu badan shirkadda Sony Talyaaniga ah Japanese ah maalintii la aasaasay 30 sano ka hor waxa ay ku qorteen buugooda ay ku heshiiyeen lacagaha isku aruursadeen inay shirkadda Sony production-ka iyo waxyaabaha ay soo saartaa in uu noqdo adduunka number 2 kaas u qoran marka Sony inay tartan gasho adduunka idil wixii saacad radio television video internet wax walba uu leeyahay ee Sony inuu tartan adduunka maxay noqdo ka koowaad adduunka la tartamayno sida awgeed cid allaala cidii aragti keeni
عدي وحورني عدي وحصوصاري عدي مامل كلو ديبي عدي تلكب بحين شركة سوني وإني وحاسو إذي لحقيجينيان محي إني سوني محي نقطه نمبر كو إني نقطه إنو قفكو إسكن نولادون ملحا نورش الزائد إنو كو أهادنا ده قرآن كيبا ونينو أقولين وإلهي يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكوبي الله سبحانه وتعالى دمته آدمها الله أبوري oo sarreeya subhanahu wa ta'ala inoomu abuurin de ضعفنima xaasha lillaah ku jirto si uu inagu xoog badsado ama saboolnima xaasha lillaah si uu zakay nooga aruursado xooga ama kelinimo uu dareemay subhanahu wa ta'ala ayuu si uu unsiyo wehel aynu ugu noqona Allah subhanahu waxa kaliyu inoo abuurtay linacbudahu katiiran wa nudhakirahu bukratan wa asila in badanna inaynu cibaado gudano بكرة وأصيلا عربكينا إنا نكوها حسك إلهي سبحانه وتعالى معناها عبادة إن الله أبوري وآن أهين معناها كسو دقدقا مسكح ذين نكذب مركي المسلمين تزمن تخلفا كدعي عبادة دي شعائر كأهيد صلاة دي يا صوم دي يا زكاة دي يا مساجد كي قراءة القرآن كي تسبيح يا تهليل يا تحميد كي كليا أنا هين عبادة دي أهيد ابن تيمية رحمة الله عليه الدب النولي معنى هذا كل ما يحبه الله ويرضاه وحكستو ألا أجعل يهي أو ألا رالك يهي أي عبادة الله يراهذا إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة شامل كأه كلان سنة يسوح الله لوحو إلهي جعل يهي أو إذن إني نكسو بحنا أو كلي أي إنو هدفه إذن هدفك أن أنو لهيد أنو شهيد لإي أبوري لغو أبوري ومحي معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفة إلهي هرتا إنا ينبرنو إلهينا أبوري بإنا ينبرنو إساقا إسكين بري في القرآن وإسكين كي شيكي ومقعدي سينو شيكي وصفوينكي سينو شيكي وقدردي سينو شيكي وكونكي سينو شيكي oo makhluuqaadkiisa inooga sheekeeyay oo yiri intaasaan ahaye waan u qalmaa in la icaabudo asaasan idin abuuray waa xaq al-maarifa ibarta idan inaynu ogaano rabbiga subhanahu wa ta'ala inuu aqoon ku ogaano ina ahayn dhaxal saasu aabaha ama saasay hooyahayd ama awowbaan ka dhaxlay aanay noqone arrin aynu aan cilm aynu ku qaadano aynu ku baranno inay horta marka koowaad inaga noqoto ahdaafta qofkan dadkan dhulka kor saaran saddex hadaf bay leeyihiin mid waa hadaf radii ah hadaf al-kufaar wal munaafiqiin wal usaah hadaf radii oo macna fara badan aan lahayn hadaf labaadna uu wanaagsan yahay laakiin mid waara maaha wala adduunku wax ka noqotiduun xoogaa shilmaad iska yar heshid magac yaro fiican oo lagu sheego inaad ka yar lahaatid waa fiican yahay oo shaqaysta in lagu yiri ma xuma laakiin ma waaraya wax sii jiraya noqon maayo hadafka saddexaadna waa hadaf tamuux ah oo hiigsasho weyn oo dheer leh mustamirna ah oo xataa noloshaadii gaabneed ee adduunku marka ay dhamaato ilaa way dhamaane gadaasha sii jira ama cilmi naafica ha noqoto ama amal saalixood ka tagtay ha noqoto ama sadaqatun jaariyo wanaagsan aad ka tagtay ha noqote wax gadaasha lafteeda lagu sii xasuusto ha noqdo hadafkaagu اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهدف إسنا عبادة إلهي محضئة والله شريك يلين إلهي سبحانه وتعالى ننبه صدح ننها كتل ماما ودقدق هانو شيغو هدفك قيمها وليهي هدف إناد ميل هيكستد مذوى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه خامس الخلفاء بأنا قلت الماما تاريخ ذو إنه خلافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير بني أمية إنه دب وقصوا عليه استغوا اسكشة كينا ينكاسي وحا ويري إن لي نفس تواقة
waxa igu jirta buu yiri dhalinyaro aad ii dhageyso ya shabaab wuxuu yiri waxa igu dhex jirta buu yiri nafsun tawaaqa nafba igu jirta buu yiri hiigsasho leh nafba igu jirta buu yiri wax hiigsanayso meel dheer inay gaadho doonaysa anoo yar baan hiigsaday buu yiri luqada af carabiga gabay iyo cilmi iyo adab inaan barto oo qof af carabiga adiib ku ah inaan noqdo anoo yar bay igu dhacday buu yiri dareenkaasi laaftayda waan gaaray buu yiri waa u dadaalay in yar kadibna khaliifadii muslimiinta bariga jiray inaan uu dhalo Faatimo la yiraahdo ayaan u hanqal taagay buu yiri inaan guursado nafsi tawaaqa igu jirto Faatimana waan guursaday buu yiri soo hadaf labaad ma hayn haddana waa ka gudbo waxaan isiri buu yiri Madiinadii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam maad waali ka noqotid odaymaad ka noqotid bari saamaad ka noqotid meesha waan u shaqeeyo iyadna waan gaaray buu yiri Madiinana waali baan ka noqday Madiina ay deeq weyday buu yiri markaasaan isiri buu warwad muslimiinta ma u talisid gabigoodaba muslimiintan waa bilaadu sind ilaa aqaasi geeska gees bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfurta jirtaba khilaafadan reer bani umayya adigu maad khaliifadii muslimiinta noqotid ay u dhacday buu laabtayda waan gaaray buu yiri amma yawma buu yiri maanta se naftayda wax kala ku jira buu yiri sareeya subhanahu wa ta'ala inuu janna igaliyo ayaa laabtayda ku jirta buu yiri janna maanta wixii ka dambeeyay u shaqaysanaya buu yiri ma fahantay ma ku galay dartigaasi naftaada wax ma galay imika musoo dhageysanaysaa uu ya ninkaas inta meeloodu soo maray soo markaysid inta ma wado flower ubax uu ku goglay yahay baa loogu ayuu ku dul maray mise uu u dadaalay Ahmed Shawqi baa wuxuu oran jiray war hooy adduun la isma siiyo inma tu'khadu dunya gilaba ninantu kaaga ku qoran maaya ka soo fadhiisadeen ana gaashaada fadhiisan doone waxa aad dooni waa la qaataa buu yiri Ahmed Shawqi waa loo dadaalay waa loo fikira ilaahayna madad baa la weydiisa subhanahu wa ta'ala ninkaas Umar ibn Abd Aziz yidhe Muhammad al-Fatih 15 jir buu ahaa horana sheekadiisa waan uga sheekay isaga waqti badan yaanu inaga qaadan isagoo malcaamad dhiganayuun baa isagana bimaana dhalinyaro aynu nahay waxaan rabaa inaynu qolooyinka tusaale ka qaadano Soomaha inaan cid kale tusaale ka dhigante Maradona iyo Diego ana inoo noqon tusaale ay raggan inoo noqdaan kuunaynu doonayna Soomaha inaan ka yaro malcaamad ama dugsi quraan meelaha ku dhigan buu sheekhiisa waxa uu ka maqlay xadiis nabiga wariye sallallahu alayhi wa sallam meel Qustantiniya la yiraahdo furan doontaan wa ina yar xadiiskan buu maqlay nabi maxamed oo leh sallallahu alayhi wa sallam labada magaalo Qustantiniya magaalada la yiraahdo iyo Roma Ruumiyana waxbay riwaayad baa tiriye waxa la hor furan doona Qustantiniya Qustantiniya waa Istanbul Soomaha Istanbul meeshan Turkiga mid madaxda waa caasimada waa Ruumiyana soo Roma maaha Romada maanta Talyaanigu caasimada waa Soomaha haddaba inta ka hor buu nabigu xadiiska yiri sallallahu alayhi wa sallam yar kan yari Muhammad al-Fatihna 600 sano kadib buu xadiiskan maqlayaa imisa qarni kadib 6 qarni Soomaha soo waqti fog maaha waaya yar ka yar laabtiisa waxa ku dhacday waa aniga buu yiri ninka Qustantiniya furanaya buu yiri xadiiska dhamaystir lahaayo fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu jayshuha buu nabigu wanaagsanaa buu yiri ninka ciidanka Qustantiniya furan doona ninka hogaaminaya ninkaas nicmad u sugnaatay jeeshka daba socdana waa sharfan yihiin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka inuu xadiiska amaantiisa helo ayuu isagoo 15 jir wuxuu yiri ana faatixul Qustantiniya intaasi ma dhantahay qarnigii 15aad ee hijriga ma marayna xadiiska uu nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi uu yiri soo in kama dhinna Qustantiniya ma la furtay yaa dhiman yaa qof idin kamid halkan ma yiri ana furayo Ruumiya
ديلا هذا ما يجي قف كم ذي مركا دبا وين دب نفتنا نقول نقولنا صوما ما إنك يا محمد الفاتح نود حيا مركا إلا محمد بحديث كان نبوم مقلي عن الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي محمد بيشي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة كسو أرورين بحديث كان مقلي صوما محاكل الدون نصقوا نصقون رجع ورينا ورجع وريوي وحكى الدون حديث كلابته وكدعي مقلي أو إنك هي أحاديث يهر اللابتي وكدعي مقلي لابتي وباكل الدون صومها أما حديثك وحديثك نبينا والنبي صلى الله عليه وسلم دول كما إلهي يباولك تليا معد كلا وريد لك مقف كلا إلهي كقاته سبحانه وتعالى سهو الحاكم الواحد الفرد الصمد صومها إلهي ومع ذلك انت ناكا فرد ما ينورن إن أنا رومي فرني ما هي نودي ذي يا إنك هرجولا إلهي ميانو قادر هاي إلهي حكمت دي سبيا إلهي نودي بكريدين مسار قسير وطاقلان نايا ما هي نرومي يخدوني الله صدح ننك صدحات وشيخي حديث صحيح بخاري أروري محمد بن إسماعيل رحمة الله عليهم رحمة واسعة يسوى إسنافرته من جرأة oo rixlatu talab ku jiro cilmiga talbanaya ayaa isagoo darsi fadhiya ayaa waxa uu maqlay laba sheekh oo culimadiisii kamid ah oo ku sheekaysanayo aad uga tabanaya ahadiis fara badan oo daciif oo ahadiistii nabiga ahayd ee saxiixa dhexjiifta sallallahu alayhi wa sallam marka kaasi waa lisaanul maqaalkiisa ma afkay kala haayeen wakaanahu waxa isleeyihiin haba dadbanaate wariya kala sooca labadan sooma saxiixina yaa gooni u dhiga wixii kale buke liitayna yaa gooni u dhiga maalintaasaan goostay buu yiri Bukhari rahmatullahi alayhi Muhammad ibn Ismaa'il inaan anigu noqdo ka kala saaraya labada arimood idan saddexdaan inaan ku sheegay waxa magacoodii aynu maanta uga sheekaynana ilaa ilaahay dhulkan inta uu dhaxlayna looga sheekayn doonaa uun naftoodii iyo laabtoodii baa waxa gashay in ay wax noqdaan gaalkii la oran jiray Hitler ee dagaalkii labaad ee adduunka gumaaday 35 milyan oo qof baa la yiri ayaa raqabadiisa dhaatay oo malqiyaamo ku qoran inuu dilay 35 milyan ayaa buugiisii kifaaxi buugu qoray oo naftiisa uu kaga sheekaynaya kifaaxi la yiraahdo halgankaygii buu bixiyay oo naftiisa kaga sheekaynaya wuxuu yiri nin 20 jir ah oo jarmal ah oo hadaf lahayn oo wax rumaysnayn oo waxa uu rumaysan yahay inuu gaaro aan doonaynin inuu noolaado xaq uma laha hal dilo buu qoful iska jooguno cuni oo cabuuno iska socsocdo wax allaala wax abuuka inuu ku soo ziyaadiyaa aanu rabin gaalkaasina halkaas ayuu maxay toolay maray tusaale wacan laakiin waxa inaga filan inta aan ku sheegay ahdaafta inaynu xaqiijino qof kasto inaga mid ihi hadafka aynu ku soo koobnay gaayada diiniga ah iyo qaayada cibaadada ee macnaheedu ballaaran yahay toddoba wado oo inu umarno haynu qaadano هل كان الشيء ذا واحد كل عضية أخي لن تنال العلم إلا بستة مركا إنه حريرة يجنون بملها محاضرين إنه يغفلا وإنه آخرنهم بيروح بدر باهد ما إنه هل كان إمام شافعي با تلمامي با مقلي ولا علم يشرف جاري ميسد إلا لح الرماد لجاهله وحكم ذا هابوي الحرص ذكاء باكور ريورت العيون إن أقول له هذا حي صار علم وهاليشد لح بانك وقولت هلين بيور ذكاء جيني سيداد نقطيد قف مسكح له حرص قف إلى شنية أوحي وهليلة قبسنية أون روحانين اجتهاد قف دلالة يناد نقطيد بلغة لقف سهير هايسين يناد نقطيد صحبة أستاذ إن الشيخ كله قنت هاي وحكبرتيد ها محيول عن قلبي عن ربي اللي سبتك عقصه ودع ما يوحي إلى عد بحكبرت سيدو عد بحكبرنا سيدنا طالب العلم وقلت مادي وصي وضوحي وطول زمان لحنا أنا حصوصنا وأنا أير ما كدر يقارن
سئات هدفك أحقيجسد كو هدفك دونيسد يولك أسعوتد واضحك وهذا waxa qabash ku jiro mugdi ku jiro aad ka shakisan tahay wuxuu yaanu noqonin laba طموح la kaalay hididiila sare la kaalay oo sare hana ku xidhnaado inaad ilaahay raali gelinayso subhanahu wa ta'ala saddex dhibaatooyinka hortaada yaala hadafka in aad xaqiijisid ha dhibsanin u soo jeed inaad mashaakilka inaad zuulisid si aad u gaadid hadafkaaga markaynu yaryarayna iskuulka waxayna loogu dhigi jiray man yatahayyab su'ud al-jabal ya'ish abada ad-dahr bayna al-hufari soo inoo ma dhigi jirin halaqaada loo dhigi jiray walaga yartiiduki qofka waxay yiraahdeen dhibsada inuu buuraha fanto ay yiraahdaan way dheertay mana halkan kori karaya weligii ya allahi noloshiisa godadkuun buu ku noolaadaa bay yiraahdeen godka ma dhex baxo hadduu qofku dhibsado inuu buur fanto afar khita plan waadix ah oo dhigatay oo hadafkaaga aad ku jajabisid saddexdaas sanad soo socda waxaan doonayaa ka inaan qabto lixdaad bilood intaasaan qaban toddobada intaasaan qaban halkaasaan ku qaban kaalmo cidaasaan weydiisan khita ku qoran oo sariita aad ku seexatid galaasheeda aad ku nabtid oo intaanad seexana aad si eegtid aroortii intaanad bixina aad eegtid wali hawshi wali ma gaarin oo guulaysidood had iyo jeer bayna nusbacaynayka inay taalo khitadii aad ku gaari lahayd qof kasto inaga mid yahay inuu qiimo lahaado ma qof baad diidan qof diidan ma inagu jira inuu aqoon durugto inaan lahaano ma cid baad diidan karti iyo raganimo iyo hididiile iyo geesinimo inaynu noqono ma qof baad diidan laakiin maxaa la u kala duwan yahay wadadii loo mari lahaa oo Soomaa wadaad Zamakhshari loo oran jiray waa caalim ahaa ayaa kitaabkiisa kashaafka muqaddimadiisa soo kitaabka amaanaya wadaad yar oo garyar lahaa buu haayo dhutii jirayo meelaha ruusha ka yimido luqtiisu ay barafkii uu ka gubay markaasuu reer Makku haayo jaarullah loo bixiyo intuu luqta ka qaado marada buu oran jiray had min xuduudillaahi looma gooynine baraf baa gubay ayuu oran jiray markaas anigaas habeenkii soo jeedkiisa wuxuu ka sheekayn jiray wuxuu yiri isagoo oo naftiisa amaanaya iyo juhdiga uu gaaray inaanay ahayn uu Zamakhshari inaanu ku noqonin ayaa wuxuu yiri sahari litanqiih al-ulumi aladhu li min wasl ghaniyatin wa min tayb anaaqi وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من الدوكاء والعشاق أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما ثم تريد بعد ذلك لحاقي وحير سوجيتك هبينكي أن سوجيت يبويل أن وراقها كتما يبورك قال كيغنا أن كقول يبورقها كوركيدو دواقا كبحيا ayaa iiga roon buu yiri gabadh ii xalaalo isku kay soo qurxiso isku kay soo cadrisay dan aan ka gudan lahaa soo jeedka buugaagtayda aan ku soo dhex jeedo ayaa iiga roon buu yiri arinta luxitaanka aan isluxa buu yiri arin culus markaan xalliyo watamayuli taraban li hal awisatin mas'ala culus oo fitiyo wax markaan dhan u rido buu yiri habeenkii ayaa iiga fiican buu yiri rag fara badan qosol aan la dhex fadhiyi lahaa آخركي بكسو gabagabeeyay wuxuu yiri aabitu sahraan ad-duja war ma habeenoo dhan baa soo jeeda si aan cilmi u raadsado adiguna waad hurdaayo waad khuurinaysaa thumma turiidu ba'da dhalika lihaqi hadawna waxa doonaysaa inaad soo gaadhid oo meesha aan ka hadla aad ka hadashid meesha aan istaagana aad istaagtid habeenna waad khuurin anna hariya habeen baan soo jeedaa buu yiri marka inaan qofku khita u lahaado wanaagi weyn wada doonana mana aha maxay tolo hididiiladu halkaasaan rabaa ma aha maxaad martay wadadeed martay waa ka ku yiri wadaadkuna bulqa iyo ijtihaad iyo xirs iyo dhakaa waxaad ku dartaa al-amal wa tafaa'ul amal inaad la timaadid si gooniyaan uga hadli maanta amalka hadii ilaahay waqtiga arju min allah ilaahay waqtiga inuu barakeeyo insha Allah amal rajo hadaad marka aad usbuuc aad bilowdidba aad tiraahid war halka ayaa gaari karaya warmeeshu dib badana zamanku waa iska adag yahay hargeysa xaalkeedu waa culus yahay warmeeshan gaari kari mayna aan balhaano meelaha uu iska marmarno oo isla markaaba aad isniyad jabisid meel gaari maysid amal la kaalay iyo tafaa'ul
إن شاء الله تعالى رجو ونكسب تضبط الصبر وحان صبر هين مياد وحكو قاري أتكيسي إن أصبر تدو وحي أدب السعودي تضبط قضب حداد حقيقي ستيد oo naftaada aad ku fulisid aniguna tayda aan ku fuliyo khita kasto dhigataa balaan kasto dhigataa biidni illaahi tabaaraka wa taala inaad xaqiijisid ayuu mudan yahay ummad waxaynu nahay al-amal ahbiyat al-amal inaynu amal la nimaado shaqo inaan la nimaadno ummad waxaynu nahay ilaahay subhanahu wa taala u roon yahay oo adduunka khayraadka kor saaran oo idin ilaahay agaarkeena dhigay wax allaala waxa barwaaqo dhulka kor saaran dhulka muslimiinta yaalaan baa la yiraahdaa wama dalika ummadaha islaamkana ummadaha ugu dambeeyeen nahay shaki kaba jiro hadii la yiraahdo yaa adduunka wax soo saara maalin dhaxdaas waan idin ku lahaa xajkii markaanu xajinaynay ayaa dharkan cadcadeenu ihraamkaanu xidhanno ayaa hareeraha waxa kaga wada qornaa as-sabr wax aan sabr ahayn miyaad wax ku gaari adkaysi inaad u sabartido wixii aad daba socotid todobada qodob haddaad xaqiijisatid oo naftaada aad ku fulisid aniguna tayda aan ku fuliyo khita kasto dhigataa balaan kasto dhigataa biidni illaahi tabaaraka wa taala inaad xaqiijisid ayuu mudan yahay ummad waxaynu nahay al-amal ahbiyat al-amal inaynu amal la nimaado shaqo inaan la nimaadno ummad waxaynu nahay ilaahay subhanahu wa taala u roon yahay oo adduunka khayraadka kor saaran oo idin ilaahay agaarkeena dhigay wax allaala waxa barwaaqo dhulka kor saaran dhulka muslimiinta yaalaan baa la yiraahdaa wama dalika ummadaha islaamkana ummadaha ugu dambeeyeen nahay shaki kaba jiro hadii la yiraahdo yaa adduunka wax soo saara maalin dhaxdaas waan idin ku lahaa xajkii markaanu xajinaynay ayaa dharkan cadcadeenu ihraamkaanu xidhanno ayaa hareeraha waxa kaga wada qornaa baan idin ku yireen made in China soo sameeyay ama dharkii maxaaribta Arafa iyo Mina aan ku joognay masaajida markaan ku tukanayna cimaamadahan aan xidhanayno madaxa saaranno ayaa iyadna waxa ku qorneed Switzerland ayaa soo sameysay markaas anigoo xajka jooga waxaan isiri jumlad yar baan iro waxaan iri ummatun تلبي بمحارم صينية وتركع بعمائم سويسرية أمد لبيك اللهم كقريسة إيضا أو حران ترجينا لوغا سوتولي كل ركوعي أو كسجودي إيضا أو حران در سويسرلاند لوغا سوتولي أمد داسي أمد أدون كان إنه هقامسة أقان تمتهي وحي حران يسي سميسان كان لا وحي إله هذا كو عابود يسي مناسكي أي كو قدال يسي 2 مليون 3 مليون oo qof baa yimaada xajka masnac kaliya muslim haduu sameeyo miyaanu milyoneer ku noqonaynin hadii uu sanadkiiba soo tufo 3 milyan oo maxaarim ah oo intaas oo lacag laga siisto oo businessba waa ganacsi weyn baba in laga keeno jayna iyo meel fog in laga keeno idan waa ummad marka ka maqan tahay maxay inay adduunkii inay wax ka noqoto waxa la isku celceliyay oo cilmi baaris xaqiiqi ah wadannada muslimiinta waxa la damcay in la ogaado shaqofka shaqaalaha ahi inta saacadood uu shaqeeyo qofkii Japaanka number 2 noqdo 12 saacadood isku celcelin ayuu ninka Japaankii ama gabadha Japaaniiskii shaqaysaa Mareykan baa ku soo xigo waxa la yiri 9 ilaa 10 saacadood bay shaqeeyaan maalintii bishii ma ahada waa maalintii Yuruba ku soo xigto waxa la yiri 7 ilaa 8 saacadood bay shaqeeyaan oo xiriirsan maalin walba wadanadii muslimiinta la isku celceliyay imisa idin la tahay inay noqoto inta saacadood ay shaqeeyaan maalintii imisa 3 ilaa 4 wax dhaamam ka jira inta ya 12 daqiiqadood ayay shaqeeyaan baa la yiri واسكو العلمتي dad badan oo shaqeeyo 10 iyo 5 way inagu jiraan alxamdulillah laakiin average lama qaadanayo kooxda yar lama qaadanayo Soomaha average waa isku celcelinaya marka ka 15 saacadood shaqeeya iyo ka aan shaqeynin marka la isku celceliyo wixii noqonayaan
waxaan jirin marka ummad shaqada halka ay ka taagan tahay oo khaasatan dhalinyaranimadoodu iyo shabaabkoodu qiimaha camalku agtoodu aanu wax weyn aanu ka ahayn waxa weeyaan inay wax fara badan inay soo ziyaadiyaan lagama filayo imaam shacraawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ayaa shacabkiisa masaarida isagoo la hadlaya tafaasiirta markuu akhrin jiray buu ku oran jiray alladhi la ya'kulu min darbati fa'sihi la yamliku qararahu min ra'sihi qofka aan buu yiri gacantiisu beertiisa aan ku falan la soo bixin beertiisa isagu qaraarka uu ku dhaqmayo siyaasadeed isagu malaha bimaana wuxuu si sarbeeb ah ugu sheegay shacabkiisa masaarida ee ceeshka ay cunaani maraykanku hadiyad uu soo siiyo daceeshkii iyo roodhidaad cunaysayba haddii uu hadiyad iyo sadaqa haduu kugu yahay qaraar miyaad qaadan kartaa ma oran kartaa af wax cunayna nabiga sallallahu alayhi wa sallam maalin wuxuu masaajidku soo galay xilli aan xilligii salaada ahayn wuxuu arkay Aba Umaama radiyallahu anhu oo halka fadhiya xilli aan xilligu salaad ahayn wuu la hadlay muu agmaru nabigu sallallahu alayhi wa sallam ra'uufur rahiim buu tilmaantiisu ahayd wuxuu yiri ma yujlisuka ya Aba Umaama halkan maxaa ku fadhiisiyay xilliguna xilli salaadeed ma aha waana masjid wuxuu yiri duyuun wa humuum duyuun iyo hammi farabadan oo ikoray ayaa masaajidka dad moodo halkaasaan u soo galay markaasuu nabigu baray ducadii sallallahu alayhi wa sallam اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل إذا وحلق أعوذ بالله استوى محي عجزه إيوه كسلك ووحلق أعوذ بالله استوى نبي محمد إلا بري صلى الله عليه وسلم عملك نوى الدين يا شباب عملك إنه شقه وحقبت كرتي وحقبت إنه الله إنه فديد تتفدي إنه نقنن والدين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فهم يردد بنو قلدن با مرمر لغيابا سئنو إنو يرقلو وقفكو inuu qof mutadayino diin la qofku inuu noqdo oo masaajid ku xidhano multazimo sharaftii akhlaaqdii islaamku ay ka muuqato iyo inuu shaqeeya laba isdiidaya miyay tahay qof wax qabsanayo oo karti leh oo al-yad al-ulya khayru min al-yad as-sufla xaqiijina isla xilligaana قائم أو ساجد أو راكع أو حافظ القرآن أو قلبي عبصونا يله أو المين سله لبا الرؤس جديدة يمية تهي لبا جديدة يمركها معها الحمد لله رب العالمين ما أنت شباب روح آذ ومغضى إن أرنتاس أرن لقتها الله بصدي إن أي هاي دوري هربها أها تأرن سو جرين أهان جرتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركي هجرد وعيد عذي من أي درس هايان غير بني أنصار سلاد أختها أيه الشيين شقذا وحا أكوي لنكا عمر رضي الله عنه مالي وان شقتها يا يسوقا تغيا وان قنعسي دان هايان راسنا مالي تانيق وان سوقا كم مقانا هايان سو شقيسانا يده أضيق النبي يؤتك صلى الله عليه وسلم وحي آيات عصب وحي وعد عصب وحي حديث عصب سو زيادة إنا سوقات أضيق deedna habeenkii soo maro wixii iga maqnaa isii adigu daraarta ku xiltana adigu suuqa tago anigu nabiga ahaan u tago sallallahu alayhi wa sallam ka war khita soomaha soo balaan soomaha rabbana aatina fi dunya hasana wa fil aakhirati hasana soomaha ya wala tansa nasibaka min ad-dunya soomaha adduunkiina waan doonan buu yiri Umar maalinta aan maqanahayna yaanu cilmigi iyo ducadii iyo xikmadii aanay dhaafine adigu inoo doon buu yiri maalinta adigu aad maqan tahayna anigu ha nabiga ku weydaarto sallallahu alayhi wa sallama amma sidna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu saddex jeer ayaa la tilmaamaa inuu maalkiisiyo idil inuu bixiyay oo kaamil ah maalin waa yawmul hijra maalina waa ghazwatu tabuk maalina waa ayaamtii xuruub ridda wax allaale wuxuu haystayba halka ayuu dhigay sidna Uthman ibn Affan iyo Abdurrahman ibn Awfna waxay ahaayeen waad ogtahay sheekayar baa laga sheekayo dhab ah oo dhacday waxa aan arinta ugu celcelinaya waa maxay waxaan dooni macna yaro inaanu sax ahayn aan qabo
ayaa si yaroo dadban aad moodaa qofka multazimka ah ahli diinta inay u gasho oo ah qofku mar allaala markuu multazim noqdo inuu adduunka cadow inuu yahay shilinka iyo maalkana inay wax najisa yihiin oo noo dhawaada aanay ahayn qofku uun si yaroo saas oo kale saboolo iska yar hambal iska cadajiidayo oo iska tacbaan uun ahoo la yiraahdo ya hada la tumit alayna diinana sida Umar ku yiri qaadijiitabaya intuu arkay oo maxaa la yiri markaas la yiri waa zuhaado waa kuwa cadajiidaya intuu yeeray waryaanahan diinta hanaga dilina cadajiidiyo hambal-hambalnimo la iska yeelo oo socodkii xaqiiqiga ahayn diin ma aha diintu waa qalbigan iyo halkan ay ku jirtaaye famshu fi manaakibiha ilaahay baa yiri orda oo ka dhex shaqaysto oo maxay tolay wax qabsada idan ya shabaab in aynu adduunkan camirno cibaado kali ah oo aynu ku camirno tacmiirku iyo cibaado uu yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo soo saaray sheeka dhaba ayaa ka dhacday Kuwait nin wadaado ayaa guursaday baa la sheega markaas ninkaasi ka la hasiye saxaabadii uu wax ka akhriyay waxa aad u ajab geliyay sidna Abu Hurayra ayaa aad u ajab geliyay wuxuu yiri sida Abu Hurayra u noolaanaya Abu Yano waa nin maal qabeena waa nin taajira gabadha uu guursaday waa taajira reer Kuwait baa gabadhooda wada tujaar Allah u ziyaadiyo insha Allah iyadna qolooyinka ay weeyaan markaas wuxuu yiri guri yaro cidhiidhiyo guri korkii ka dhisan intuu kireystay buu yiri halkaas aynu degaynaa cidhiidhiyo cadaab ah sidii Abu Hurayra u noolaanay way ku waafaqday gabadhii baad keensan kari weydo markay dadkoodu soo ziyaartaan walaalaheedii wax noocaas oo dafilooyin iyo qusuur degani ayaa meel allaala meel ay fadhiisiso ay garan weyda sheekhna u tagtay sheekhada kamid imika nool markaas ay ku tiri dhibtaas ay haysata sheekhowe bal wadaadkii la hadal heshiiskaana waanu ku heshiinay inaanu sidii Abu Hurayra u noolaano inaan imika kaga baxo itaalu ma hayo hawshina waa igu adkaatay bal sheekha la hadal igu yeer buu yiri والله يا رب الله hadlo maxaa dooni buu de waxba dooni maayo sidii sidna Abu Hurayra radiyallahu anhu inaan ku daydaan doonayaayo saas oo kala de inaan nolosha iska cidhiidhiga ah markaas uu ku yiri wadaadki adiga iyo Abu Hurayra ma nasab gooni ay ka dhaxeeya markaas uu yiri ma sida Abdurrahman ibn Auf noolaatid buu yiri hadda oo sida Uthman ibn Affan noolaatid marba haduu Ilaahay arzaaqdi uu ku siiyay ما سيدا رقابة ونولاتد مبشرين بالجنة بي أهاينا واي أن شيكنا وقوع العلداء وقت الإرادة أن وقوع بحنايا وحا أن ربا إنه أو مؤمنين أو أهل ويساء أو أهل سجود أو أهل الدين أو أهل عقيدة أيين ربنا أبدون كان كوركيسا إنه وحكا قبسنو أو إنه شقيسنو أو إنه ددالنو أو هرددو إنه يراتو أو إنه يرنهي بيدتكو إنه قبطو أو إنه صورنا إنه لا نهي وعجلت إليك ربي لترضى intaasoo idil waxaan u samaynayaa inaan sadaqa la baxo inaan jihaad diyaar ugu garoobo masaajida ilaahay inaan qurxiyo la hasada illa hadiiskana waad garani naam qodobka labaad intaasi amalka iga ahaado qodobka labaad ee raba inuu aad inoo galo oo isaga laftiisuna inaynu xaqiijino hadaf nololeed kaasi kii shaqada iyo qiimihiisa ha noqdo laabteena aad ha u dogto inaynu ummad kaliya inaynu nahay umma waahida inaynu nahay ummadeenu waaqiceedu aad buu qaraar yahay waa marka aynu ku eegno maxay muraayad madow inaga oo xidhan haddaynu muraayada iska saarno laakiin inta imiga aan arkayaan arki soo khayr ma isu keenay soo inaynu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelina ma diintiisa inaynu isku sheegno soo ma سواد المسلمين إنه بدينا صومه ما نصب أي نقد حياة ما جناح سبا أي نقد حياة ما تنقوني إنه قونوا وقصعنا سو أنتي ناس إذا در إلى هاي الرالي لماذا يسومين صوبحن إذا أمض ومن عاثمان قبت مته أمض هراء الصعوت مته وذا شيخ راشد الغنوش لا يرابا وحي إلى أمضوا حبط كيكو الثقة سابويري مدافعنا كل كذا لا دعيا إيضا وحاصلنا لا دعيا وهذه لأنه كان عررنا oo midba uu gurigiisa u galo ayaynu hadba siqaynaa oo aynu rabnaa inaynu gaadhno wuxuu ilaahay ummadan ugu tala galay oo khayriyadii xaqiiqiga ah ummadan in laga helo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas idan inaynu xaqiijino hadafka khayriyada inaynu noqono sharti maaha inaynu adduunka ugu lacag badnaano sharti maaha adduunka inaynu teknolojiyadiisa hogaamino sharti maaha oo wax saaw si ridan ba ma aha waxa la tilmaamaa Japan kan
dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ku dhacay waadiga og Hiroshima iyo Nagasaki madaxa in lagaga dhuftay odaygii Hirohito intuu cararay calan yaroo cad intuu balfiyo waa kiis dhiibay wixii lagu sameeyay waadiga ogaa 200 arday buu dirtay baa taariikhda ka sheekaysa 200 wuxuu soo xushay ardayda ugu aqoonta badneed ee Japaaniiska ahaa markaas wuxuu u diray Yurubtii guuleysatay iyo Mareykankii guuleystay baa loo diray markaas wuxuu ku yiri wax allaala waxaad aragtaan wax la curinaya ah ama aqoon ah librariyada gala macaamisha gala jaamacadaha gala meel kasta galo waxaad aragtaanba soo naqila oo soo dira taariikhda waxay ku qaadatay thawrat sariqat almacluumaat kacdoonkii xaditaanka aqoonta 200 dhalinyaro soo noqday ayaa waxa la yiraahdaa waxa ay dhiseen hanaan socodka iyo horukaca tiknoolajiyada ee Japan oo idili marka wax saa u sii ridan ma aha inaynu tiknoolajiya farabadan muslimiintu inay gaadhaan oo waa aqoon la soo naqili karo la soo guurin karo aqoonteediina waa haysaano shaki kama jiro maskaxdeedii biyuurka ahayd ee qaadi lahayd baan u jeedaa laakiin iimaan xaqiiqi ah cabsi ilaahay akhlaaq التقوى التوكل الأوبة التوبة المآبة الخشية انتاس هالكين لغا يبسن كرا سوقي هيا من نيويورك ما لغا كيني كرا بون ما لغو يبيا لندن ما يحيسا ما حيسو وذا باو علي مكفر ديو قبا يا أهايا وحو يري في بلاد زمزم ولكن من يدري شعبي قيمة زمزم وارزمزم وطن كرا لغا هلا أبو يري tolkay yaa u sheegay buu yiri qiimaha zamzamku uu leeyahay macnaha waxaan uga socdaa ummadan inay hana qaado kacdo oo inuu qiimo lahaano yaan been inoo sheegiro yaan inala niyad jabinin Yurub 5 qarni bay inaga horeysaa 5 qarni inaga horeysaa computer la qaraacay inaga horeysaa 5 qarni 10 qarni inaga dambaysa xagga akhlaaqda ma la yiraahdo marka oo la dhameystiro jumlada 10 qarni bay inaga dambaysa akhlaaq iyo qiimo hadda computer la qaraacay iyo inaga horeyso waana arrin aynu soo guudin karno aynu soo qaadi karno aynu halkan adiga oo tukada oo raakic ah oo mutawaddi ah oo gabadhu xijaaban tahay oo niqaaban tahay oo la kala soocan yahay oo la isdhex yaacaynin miyaan technology baran karaynin sabab baran karno idan yaa niyadayna laga dilino kunka sanad soo socdo Yurub gaari mayna waa been iyaga ina gaaraynin illa ay kitaabka Ilaahay qaataan iyo sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idan ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين استضعاف كما أنت أين كجرنو إلهي سبحانه وتعالى وحقه كتابك أسودجي شرائعنا الله شرعي نبينا الله صادري سيوف الجهاد نغم دياد الله غساري إنو إلهي دحل يددك صالحين تقولك إنا يغو هجان أو يغو تصالها الدونك إن أي نقضان إلهي محودوني سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محودوني أن تقود البشرية الدونك إنا إنو هجنو مية علوستهي ما علوستهي أنت الدونك إنا إنو هجنا الدونك إنو تصالون نقلنا مية علوستهي وحل الدور يا الله تخطيطنا يا كنجر إن لو علينا يا إن أينو كوك قالوا inaynu inagu nahay namuudajkii ahaa in lagu dayday isla xilligaana ay tahay inaynu rumayno qodobyo farabadan iyo meelo farabadan oo islaamka shaqo ku lahaynini inaynu haysano oo aynu sidano dib u dhaceena marxaati ay ka tahay qodob kalaan ku daraya qodobka al-umma ah cudur aad u weyn oo dhexdeena ku weyn ya shabaab la dagaalanka aynu la dagaalanaana uu yahay inaynu kasbi weyn aynu xaqiijin doono وحوي أنا كلمة أنية الله يلاحظه الأنانية أنية وحنا من سنة عذرة وجوا وين عالم كإسلام كدحيا لإنه يدحي وحنا من سنة عذرة وجوا وين لابتنا دحجباح إنه يهيد الأنا شوكي نكتة واحد جرتن وحنا نقص أصله شوكي واحد جرا نكتة أي لهذا مصاري iyo waxa dooday baa la yiri Japanese baa dooday Masri markaas waxa la yiri qof Japanihi faa'iido ma leh saddex Japana waa aqli iyo maskax kii Masriga baa soo booda wuxuu yiri saddex masaarihi waligood kulmi ma faa'iido ma leh Masri kaliyina waa aqli iyo maskax li adduunka lidkiisa inuu noqon markaa
inuu qof kasto inaga mid inuu doonayo maxay anigu han horeeyo anigu han helo anigu han daaqo aniga hala isheego aniga hala igu celceliyo anigaas sidoo u aruursamo cudurro ayaa asaasma cudur maxay ah inaanay laba qof afar qof oo inaga mid inaan shaqo wada qaban kareynin shaqo adduun oo wada qaban karnaa mushkila أمك إخواننا في دهبشين شركة واكا عندهم مرتب يقاضني ساسو كله نين ايجي ما لاني والباخر كم حقوقاته مشاه شركه سمدها سيمري شيلين كاس اسكو كيني لكن waxaan shilin isku keenin oo amal voluntary ah oo aan shilin ka dhaxayn oo adduun ka dhaxayn oo waxba aan ka dhaxayn isku yimaadaan oo isku dulqaataan kan inuu ku qaldamo kan inuu xagto kan inuu dhaleeceeyo kan inuu wax ka sheego uma tababarsanin inoo mana arbanin waxayna loo arbiyay maxay qof kasto kaliga jir cudurka inaan ka hortagno aad iyo aad bay muhiim u tahay wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun hadika nafa'budun afar daa'iro afar circle ayaa inagu qoofan subhanallah saaso kale afar darajo oo tahay inaynu xiriirino koow waxa weeyaan wadanka aad joogtid wadanka maanta aan joognaa horumarkiisa iyo diintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo akhlaaqdiisa iyo bulshadiisaba inay horumarto inaanu ka talino soo waajibna saaran maaha mise cid kale inoo imano inoo shaqayn kan idan kan ka tanistiisa iyo shaqada aad kan ka qabani aad iyo aad bay daruuri kugu tahay حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك إنه قيمة يدك أولى النول يهي ما أنتم مكاك بحيي ما أطيبك من بلده الله مكاي في عن ذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم تلكانا حدانا إساري لهين كام بحين كل الدجانا مكاي أذان كوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا شباب ما شاينو دجنا هاي إنه وحكو برني إنه كو أبابرني إنه كتم إنه دنيه سي مستقبل كيس أكتين إنه كويناته وواجبنا صار لبق درسك أدلة دقنتها درسك حديث كيسنا واتقاني قيمها أوليها أمضى إسلام كبالله يدو أبتر سيما شيئا يسيد من لم يهتم بأمر المسلمين واتقانا آخر كان فامل كاغا يرير كأبي يهويو انتي كلنا راتي انت عدو لحظي انت أهمية دائرات كيتسينا سانا أهمية آدي آدو قيمة بدنوين وحان كقبل حيون كسو قبل هذه إلهي إذن شعائر كإسلام كأو إذري waxa ay ka soo horjeedaan kelmadda aniga ka soo horjeedaan islaamku wuxuu aad inoogu baaqaa innaga nahnu ayaa islaamka agtiisa aad ugu weyn salaad baynu tukannaa ama kaliya tuko ama jamaaca la tuko iyaaka nacbud baad tidhaahdaa iyaaka acbud weli maad odhan adaanu ku wada caabudnaa allah subxaanahu wa tacaala ayaad ku celcelisaa qiimo fara badan leh daraartii 5 jeer baynu masaajidka xaafadda aynu deganahay iskugu nimaadnaa inaynu nahay ummad wada socota inna lagu ma daynin intaa jimcihiina isku kaalayayna lagu yiro si gooni isku wacdiya inna lagu ma daynin intaa sanadkiina 30 maalmood inta is arkaysa inta aan is arkayninba dareeni ha idinka dhaxeeyo bir ramadaan baa ina la siiyo bal waxa wada dareema ayaa ina la yiri 30 maalmood oo madrasada gala ina lagu ma daynin intaa waxa ina la yiri in idinka mid intaan xushoon keeno ayaa isku keeni doonaa buu yiri sanadkii xajka isku keeni doonaa buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala markaas ay dhowr 10 maalmood ama 10 wax ku dhow wada joogi doonaano isku dharna waan u xiri doonaa buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala inaha soo idili soo in lagu celcelinayo ma aha war jamaaca barta wada shaqayn guud barta iskaalmaysi barta salaadan 5 qodob salaada aynu maalin walba tukanno 5 qodob oo ka dareemay walaalkay igala dareen waana qodobkan kaga baxay weey eeg hadda mid waan ku sheego midnimadeena ayay marxaati ka taco hal masjid baan iskugu nimaadnaa intii isku xaafadihiba laba safkaynu sinna soma wadaadkii nama tukiyay ilaa uu yiraahdo war safka toosi macnaheedu waa maxay
تصمم بين النحي الناس كأسنان المشط بن محمد صلى الله عليه فقير كي وحكو أكتو كذا أيوه غني أقول يهن كي أقول تطرق لها وحكو أكتو كذا كان خدك فريمين سوما ننكي دخترك أها كرشبوي جيبكو أكتو كذا كي عضيلها أها كي بخارك لها بكو أكتو كذا نين وليين ورادو دك هاتك ما جرته صفقة على قد وصفقة هره صفقة على صفقة سياسيين صفقة على صفقة دقاليها ولي مساجد لا يري ما بقى مثل ثم هم بنا يوم سمناهم ما كان سين ونبع هذا سفي عايز كون نبنا ونسفي عن يعني كفينا يسوع دو وانا سير هذا ولي بس ما حينا لبريا ورمس من باتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم سلا إلهي هرتيس أدو سمنتهين أيضا نرشنا أدو سمنتهين صدق نظام باينا لبري النظام صلاة إن لقوا بري وما حينا لقوا يري نكاد تكينا يهه ها راع haka hormarin baa lagu yiri ha dibna ha kaga dambaynin bal ahadiis adag baaba ku soo aroortay hadaad ka hormartid maxaa lagu bari dabagal inma ju'ila al-imam li yutamma bih imam hakaliyo imam looga yeeray inaad ku dayataan oo raacdaan fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha sajada fasjudu nidaam tahay nidaam ma tahoninka un ku dabagala oo haka hormarmayna la yiri وصلاة أفر صلاة وحنا لقوا بري ومال والبشن جرأة الشورى ولا تشرع إن لقوا وحتى إمام كاكو تكين يا صلاة من أما قوما وهم له كارهون فقد برئ ذمة الله منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قفك تكيا أمد داسون رالك أهين ذمة إلهي بريبو كيان بمعنى حتى إمامك إن تكين يا أمضينا محاي كتاي ويه محاي لكتاي رالي وشورى اسكدا وحكا ولا اسكو ديبتو ها وحكا لا اسكدا هراها نوغا سocdo الطاعة بالمعروف ولا تكين يا haduu yar qaldamo aayadaha quraanka ee jahriga maxaad ku samaysaa ya ma saxda الفتح صومها ما تكحشوتا ما تكبغدا جلبو كدغي ما سورن محو اسلامكو ينغو ربينا يا شباب ورحق الشيخ حتى صلاه غديده ku jira u sheeg wadaadka salaad aayada ku yar qaldantay u sax haduu wax ka tagana u sheego maxay dheh ha subhanallah ma tiri dumarkuna ma aamusaayeen iyagana misayagana waxa la yiri ya تأمر بالمعروف يدنا ولا حتى في الصلاة صلاة قده هذه بها الضوء واحد يدنا سنة النبي الراع أمرك معروف هذه نوحة لو سبحان الله ده انت عصو إذلي صلاة إنه مال والبه اسكبوني ماذا كجرتا فالكو رمض اللي بارك الله لي ولكم حدينو شمتها أرمضوا صلاة كقاعدنا كورم مر الله لمر كيو صلاة من نقصنه وذاتك ما توري نقول لها سووا صفوفكم مر الله لما كانوا سلاما نقصنا إنه مساجد كبحينين وكبها قردينه ميانو النظام سنحي سيبون أداكم كصبحنا زحمة يبوغ صمها سوى نقيمك النظام سنين معين هلي إلهي إمك أنه هرجونا سبحانه وتعالى ميانو هو رب يقول ميانو هين مركا صلاة وحياما فربضنا وكلا وقت يضيق وكيهي waxa ina laga raba inaynu ka qaadano faa'iido aynu ku dabaqno maxay nool maalmeedkeena oo marka laga arko salaadii inay raad nolosheeni inay ku leedahay inaha aan ka hadlay haday sax tahay min Allah wa rasuuluhu taa wax ka tagay ama wax ka nusqaamiyo nafteeda shaytaanka Allah iyo rasuulku bariibu ka yahay al-amal nolosha hadaf yeelan nolosha dheeraad ku noqonin amalna la kaalay qof shaqeeyo noqo ummadanina ummad aad u intimooto oo hoogaaga iyo hiilkaaga haysata han noqoto qof rajo iyo amal lehna noqo wajazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum xana la iga raaliyaha abu sheekh xasan ba gadaal mar dhow aan jaleecsado halkan fadhiya waad ka gabagabaysateene bihi baa yimid isaga insha Allah taala inoo dhawaadan doonta ka hadhay wajazaakumullahu khayran bismillah sideen hore u tilmaanay dhowr su'aalood ayaynu sheekha yar weydiin doonaa insha Allah
sheekh su'aashan waxay oranaysaa muxuu sharcigu ka qabaa in uu ninku uu kula hadlo oo kula sheekaysto gabadh telefoonka horaan u sheegay jazakumullahu khayr barakallahu fiikum wa qolay qof aqoon u raadinaya horaan u sheegay masaa'ilka fiqiga ah iyo masaa'ilka fatwada iyo arrimahaas ah horaan idinku iri culimada la weydiiyo anuu inay wada sheekaysanaysan baan hayna moogti waan sir wacdinaynay hadalkayga baan ku jawab isku naseexadeena baan niri wixii qadaaya fiqiga oo idil qadaaya fatwada oo idil waxaan jecelahay hadii ilaahay idmo wadanka culimo waaweyn buu leeyahay in loo celiyo iyaga la weydiiyo hadii ilaahay idmo mawduuca yar ee isku naseexaynay hayna iska weydiino jazakumullahu khayran